kala guuray gardarrayo nabadii dharaartii oo kala gigitay gabaldhaciyo waa beri wakhtigii gelin baa heer joogay geedkii hadhkiisu isbeddelay saacad gudaheeda geedkii hadhkiisu isbeddelay saacad gudaheeda jidmagala karkama baxa dad soo gaadhi baan nahay jidmagala karkama baxa dad soo gaadhi baan nahay kutubta gacanta midig ha la saaro dhaarta aan yeeli doonana ha layga daba dhaha insha allah waxaan ku dhaaranayaa magaca ilaahay inaan xilkayga u guto si daacad ah oo ay ku jirto danta dalka dadka iyo diinta dhowrana dastuurka qaranka iyo shuruucda kale ee dalka u yaala wabillahi tawfiiq wanaagsan qodobka 16aad daryeelka qoyska qof kasta oo qaangaar ah xaq u leeyahay in uu guursado guurkaasna uu ku yeesho qoys uu ku leeyahay diiniyan oo fiicanta guurka nabiguna calayhi salaatu wasalaam waa sunna inaynu guursano waa sax maxay ay dawladdu ay ka qabtaa inta badan waxaad arkaysaan guur aan dadka eheladii aan raalli ka ahayn oo la isku guursanayo ay leeda ka dhalanayaan wax aska kaftamada qudbasare la ilaa waxyaabaha ay inagu qaangaaray oo jaahilnimo tahay guurka sidiisa banaanba wuxuu ku qurxiyey madal in la isku bixiyo qodobkiisa lixaad xeerka uu soo saarayo baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee nidaamka arrimaha qoyska waxa jiray waqtigii kacaankii siyaad bare culimo waxa loo diray inay xeer ka soo saaraan may culimo hayne dawladda loo diray waxa lagu dhahay xeer laga soo saaray xeerkii la soo saaray wuxuu noqday in diiniyan gabadha iyo wiilku ay sinaadaan dad islaam ah baan inagu shadu la ilaaha illa muhammad rasuulullah ma ilaahayna ma simin marka diiniyan ma simi karno dawladii siyaad bare wadaadadii baa qaylisay way dagaalameen kulku korta madaxa ka wada jar masiibadii waqtigaa nagu dhacday alaa weli way nagu jirtaa waxaan markaas soo jeedin lahaa xeerka maadaama baarlamaanku xeer buu ka soo saari doon inaanu khilaafsanin diinteena islaamka qodobka 722 waxaa tidhahdeen ereyga carruurta oo qodobkan ku xusan waxaa loola jeedaa qof kasta oo ka yaardada qaadgaadnimada anuu labadaa ay isla bargteen ka saaraan oo dastuurka ismana gelayaan da'da qaangaadhka oo 15 sano ah iyo da'da xilkasnimada sharciga mas'uuliyad baa ka dhalata oo xagga dembigana la yidhaha criminal responsibility qofkani masalan hadduu dil geysto ama faldembiyeed kala galo miyaa lagu qaadi karaa waa da'da uu mas'uul noqdo marka labadan dacwadee la muransiinaya ha laynaga daayo anuu buuggan aan eegay kale oo sharaxaada oo aad kaga hadasheen wadamo dhowr ah tusaale soo qaadatay waana idinku hambalyeenayaa da'da 18 jirka oo tiraahdeen wadamada Masar, Kuwait, Suudaan, Algeria iyo Azerbaijan ayaa u yaqaan da'da qaangaadhka marka qodobkan aynu ku sheegno da'da qaangaadhka oo 18 wixii ka yar ayaa carruur ah mas'uuliyadda dambina ka baxsanaya waxa kale oo qaybtan kaga hadasheen page-ka 34 aragtida koowaad iyo madaahibta afarta ah siday u kala qabaan aragtida koowaad 15 jir baa ku sheegteen oo xanaabilada iyo shaaficiyada aragtida labaad 18 sano oo maalikiyada iyo xanafiyada aragtida saddexaadna 19 sano oo ay xanafiyada iyo daahiriyadu qabaan anu waxaan oran lahaa wabtaqi bayna taalika maaragtay sabiila meel dhexe oo aragtida labaad oo 18 jirka ah aynu qaadano dastuurka aynu ku qoranno qodobka 28aad ee dastuurka hadda aan haysano oo uu soo bedelay 26
wuxuu ka hadlayaa guurka farqada shanaad ee guurka ka hadlaayo waa saarteen waxaana fiicneed meesha aad ka saarteen in faahfaahin dheeraad aad ku dirtiin yaa waaye qofka guursan kara ma 18 jir baa ma 15 jir baa haddii 15 jir la yidhaahdo ilmihii iskoolka dhiganaya yaryaraa gabdhihii yareerka ah waa wada guursanaya odayaasha weliba waxay qabaan gabdhaha inay dheef badan ku jirto marka gabar yaroo muxuu ahaa oo la qoor qabtay la arki doono oo la guursado 15 jir ah marka yaanan anaga sii badbadinayna guurka sida caadiga aan ka dhigno 18 meesha aad ka tirteen guurka saxda waa 18 rah sababtoo ah Soomaaliya waxay ka tirsan tahay qaramada midoobay shuruuc badan oo nagala dhaxaysa ayaa jirta wax weyn oo hadda diinteena ay u dhimaysana ma laha inaana canugtaas 15 jirka aan la guursano 18 ilaa ay ka gaadho in la sugo wax culays oo weyn oo ilaahay ma laha qodobka 26aad daryeelka qoyska farqadiisa labaad wax badan ayaa asagana laga hadlay waxaan ku waafaqsanahay xildhibaanadii ugu dambeeyay hadda igu horeeyay ee yiri da'da qaangaarka waa 15 hase yeeshee waxaan waafaqsanahay da'daas inay ahaato qaangaarka 15 maxaa jira annaka maadaama dad islaam aan nahay gabdhahanaga qaarkeed waxaa laga yaabaa markay da'da 18 ay jiraan inay haystaan 3 caruur iyo 4 caruurood oo kale marka haddii la yiraahdo 18 wixii ka yar ah waa ciyaal oo caruur gabdhuhuna ay rabaan ama xataa wiilal ha noqdo ay ku qaangaaraan 15 qaarkeen ayaa xataa Soomaaliya waxa laga helaa 13 inay ku guurgalaan ay xilligaas ay 18 gaarayaan ay haystaan ilaa 4 caruur oo kale iyo 5 caruur saadabteed waxaan waafaqsanahay xildhibaanadii soo jeediyay in da'da qaangaarka ay ahaato 15 sano ma gurxamo libaaxii dadku gacashanaya garbodkay cayaaraan shabeelkii wax goyn jiray durwagii gondaha maalka jari garay wanaagii magadoodow iyo shiintay geeska rogatee lama gano maroodiga intay niman gabraartaan waa loo gudboon yahay sharciga geeslaayigaba waa loo gudboon yahay sharciga geeslaayigaba kabadihii u soo jeeda helay jeelka uu geliyey jiilaal gardaadsaday hillaacii u galacleeyey guunyadii abaartu way heshee gubadu doogoobay reerkii gablamaya ilaah geesiga u kiciyey reerkii gablamaya ilaah geesiga u kiciyey gurxan badan wax uma go'a dad soo gaadhay baan nahay gurxan badan wax uma go'a dad soo gaadhay baan nahay gariga iyo cawshii muskay galabka daaqaan garanuugta iyo harimcadkii roobkuba u da'ay dawac iyo gaduudanu mabduu gaadhay waa hore goonni daaq biciidkii ahaa kaalaydii garay heel jiraha nabad baa dhex taal deeradii guban waa loo gudboon yahay sharciga geeslaegaba waa loo gudboon yahay sharciga geeslaegaba beentii guclaysay runtii orodku soo gaadhay gudcurkii caddadu qabata ee galaya xanuuraysay korkorkii cadsoo doonta ee maydu go'i waayey
godkii muskuu gali jiriyo gubatay oodiisu godkii muskuu gali jiriyo gubatay oodiisu gumaystaha gadhka ulula nin soo gaaray baan ahay gumaystaha gadhka ulula nin soo gaaray baan ahay gabar bay dhashiyo waa la nacay geedii bay dhalay geellama xambaadhiyo horweyn reeru soo galay gaajiyo rafaad kuma jiriyo gacan shisheeyaad isma gowracaanoo dadkii gacal walaalow gunti xiratay dhallinyaro jacayl galay naftoodii waa loo gudboon yahay sharciga geeslaayigaba 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 waa loo gudboon yahay sharciga geeslaayigaba